السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kasoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. Soomaaliya oo ka mid noqotay dalalka ugu liita ee xurriyadda iyo dimuqraadiyadda caalamka. Warbixin uu soo saaray ururka aan dawliga ahayn ee Freedom House waxaa lagu soo bandhigay qiimeynta xurriyadda dimuqraadiyadda ee dalalka caalamka ee sanadkii hore 2019 waana sanadkii 14aad ee ururkaasi soo saaray warbixinta xurriyadda caalamka. aqalka xurriyadda Freedom House waa urur aan dawli ahayn oo ka dhisan dalka Mareykanka wuxuuna inta badan cilmi baaris ku sameeyaa arrimaha dimuqraadiyadda, xurriyadda siyaasadda iyo xuquuqda aadanaha. warbixinta oo loogu magac daray halganka hogaamiye la'aanta ee dimuqraadiyadda waxaa lagu muujiyay in 64 wadan ay hoos uga dhaceen xuquuqdooda siyaasadda iyo xorriyadooda halka 37 wadan oo kalena la arkay inay kor uga kaceen heerkii ay hore ka joogeen xuquuqda siyaasadda iyo xorriyadda. warbixinta waxaa lagu sheegay in kastoo ay dalalka ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushia ay hoos uga dhaceen haddana waxaa cilmi baarista lagu ogaaday in 25 wadan ee ka mid ah 41 dal ee aas-aasa dimuqraadiyadda ee xitaa lumiyeen khibradooda dimuqraadiyadda tan iyo sanadkii 2006. warbixinta waxaa lagu muujiyay in Mareykanka uu ku naaloon jiray heerka xurriyadda ee la midka ah dalalka Switzerland iyo Britain 10 sano ka hor uu haatan Mareykanka hooseeya dalalka Greek iyo waliba Slovakia. warbixinta ururka aan dawliga ahayn waxaa lagu muujiyay in dalalka Finland iyo Norway iyo Sweden noqdeen dalalka ugu heerka sarreeya ee xurriyadda caalamka oo dhan ee sanadkii 2019 halka dalalka Netherlands, Canada, Ireland, Australia iyo New Zealand ay ka mid yihiin dalalka heerka ugu wanaagsan ka galay qiimeyntaas. warbixinta waxaa kaloo lagu soo bandhigay qiimeynta 5 wadan ee Carabeed ee ugu wanaagsan xurriyadda dimuqraadiyadda waxa ayna kala yihiin 1 dalka Tunisia oo helay 70%, jasiiradda Comoros oo heshay 44%, dalka Lubnaan oo helay 44%, dalka Urdun oo helay 37%, dalka Morocco oo helay 37%. dhinaca kale warbixinta ururka Freedom House oo diiradda lagu saaray xuquuqda xorriyadda siyaasadda iyo waliba muwaadiniinta waxaa lagu soo bandhigay 49 wadan oo ka hoos maray kooxda aysan xorriyadda ka jirin. wadanka Syria ayaa la sheegay in kaalinta ugu hooseeya ka galay qiimeynta xorriyadda dimuqraadiyadda. dalalka Soomaaliya iyo Sacuudiga waxay qiimeynta ka heleen 7%, Liibiya 9%, iyo Yemen 11%, iyo dalalka Eritrea iyo dalalka Waqooyi iyo Koonfurta Korea ka mid noqdeen dalalka ugu heerka liita ee xurriyadda dimuqraadiyadda sida lagu muujiyay warbixin sanadeedka ururka aan dawliga ahayn ee Freedom House ee sanadkii hore ee 2019.